maalmihii la soo dhaafay shir ballaaran ayaa beelaha warsangeli uga furmay deegaanka Ceelbuux shirkaas oo soo gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay bisha koobaad labadeeda 2025 shirkaas warmurtiyeedkii ka soo baxay ayaa laga akhriyay goobta fagaaraha shirkaas ka socday maalmihii la soo dhaafay maanta waxaan isugu nimi inaynu gabagabadii shirkii aynu soo waday dhowrka cisho warmurtiyeedkii ka soo baxay aan sheegno maadaama dadkooda dhabeesha caalamka adduunka oo dhan layna ka sugayo marka insha Allah waxaan gadangelayaa warmurtiyeedkii taariikhda labada bisha koowaad 2025 maanta oo ay taariikhdu tahay 2 January 2025 waxa soo gabagaboobay shirweynaha beelweynta warsangeli oo looga arinsanayo culaadda ka oogan degmada Ceerigaabo kaasoo ka qabsoomay magaalada Ceelbuux gobolka Sanaag shirkaas oo ku baaqay suldaanka guud ee beelaha warsangeli suldaan Saciid suldaan Cabdisalaan ayna soo ajiibeen dhammaan guurtida dhalinyarada qurbajoodka waxgaradka beesha dhamaantood haddaba gobolka Sanaag oo bedkiisu dhan yahay 55,000 oo kiiloomitir square 35,000 oo kiiloomitir square oo kamid ah waxa dega beelweynta warsangeli halka degmada Ceerigaabo ay wada degaan 4 beelood 4 degmo ee soo haray 3 kamid ah waxa gaar u leh beelaha warsangeli intaas kadib colaadihii ka aloosmay dalka Soomaaliya iyo burburkii dawladda dhexe November 1993 afartii beelood ee ku sugnaa degmada Ceerigaabo waxay ku nabdeen heshiis ka madax bannaan nidaam maamul oo ah nidaam qabiil wada deganaansho ah nasiib darro 27 November 2024 waxaa magaalada Ceerigaabo ka qarxay duulaan qorshaysnaa muddo dheer laga soo shaqaynayay oo lala beegsaday beelaha harti waqooyi kaas oo ay ka dhalatay dhimasho dhaawac boob hantiyeed barakac iyo baro kicin dhammaan dadkii ku abtirsanayay beelaha hartiyeed duulaankaas waxaa ka horkacayay maamulka iyo ciidamada Somaliland oo ay weheliyaan maleeshiyad beeleed ku abtirsada SSB G36 iyo wax la mid ah oo ciidamadoodii ay ku sheegteen maamulka qaran ku sheegteen dhinac dagaalamayay ugu dambayn shirku markii uu si qoto dheer u falanqadeeyay gaboodfalada iyo waxyeelada ka dhalatay falalka guracan ee lagula kacay qaybo ka mid ah bulshada markuu si mug iyo wada tashi leh uga arinsaday dhibaatada taagan shirku wuxuu go'aamiyay qodobada soo socda qodobka koowaad shirku wuxuu guddoonsaday in ku dhaqanka shariicada islaamka ay u tahay marjac wax kasta oo laga wada hadlayo isla markaana shirku wuxuu go'aamiyay midnimada beelaha warsangeli in ay tahay muqaddis qodobka labaad laga bilaabo maanta shirku wuxuu cadaynayaa in beelaha Isaaq ay buriyeen heshiiskii nabadda 11 bishii 11aad 1993 ee 4 beeloodka ee lagu wada deganaa magaalada Ceerigaabo gabi ahaanba heshiiskaasu waa burburay sidii loogu heshiiyay maadaama ay ka talaabeen gabi ahaanba heshiiskaasu waa burburay qodobka saddexaad shirku wuxuu go'aamiyay in si buuxda oo mug leh loo difaaco dadka deegaanka iyo hantida beelweynta warsangeli gaar ahaan degmada Ceerigaabo qodobka afraad shirku wuxuu magacaabay guddi ka kooban 35 xubnood oo u xil saaran maareynta iyo fulinta qodobka saddexaad waa qodobka aan kor ku soo sheegnay oo difaaca dalka qodobka shanaad shirku wuxuu cadaynayaa dhammaan
waxyeelooyinkii ka dhashay gaboodfalladii maamulkii Somaliland iyo maleeshiyaadkiisii beelaysnaa ku beegsadeen bulshadii ka soo jeeday beelaha harti inay iyagu qaadanayaan mas'uuliyadda cawaaqib xumada ka dhalata arrintaas. qodobka 6 shirku wuxuu ku baaqayaa beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarka bini'aadanimo in ay gurmad degdeg ah u fidiyaan bulshada laga soo barakiciyay deegaanadoodii iyaga oo xilligan ku sugan duruufo adag hoy la'aan cunno la'aan biyo la'aan. qodobka 7 ugu dambayn suldaanka guud ee beelaha warsageli suldaan Saciid suldaan Cabdisalaan wuxuu ku baaqay in 15 February 2025 shirweyne isugu yimaadaan beelweynta warsageli magaalada Ceelbuur kaasoo lagaga arisanayo aayahooda. gabagabadii shirka qodobka ugu dambeeya ee 7 sidii horeba looga saqariyay wax badan baa warsageli yiri baa shir la qabto ama bana ayna suurtoobin maanta shirka lagu baaqay waxa la doonayaa dadka diasporada oo qurbaha u badan oo Facebook iyo WhatsApp kun lama saal yeelo waxaan ka codsanaynaa inay si mugle iyo miisaan leh uga soo qayb galaan kuwa dalka joogan meel kasta ay jiraan inay shirka isugu yimaadaan lagaga tashanayo aayahooda xaaladaha dalka ka taagan war murtiyeedkii intaas ku egyahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi